wanaagsan daawadayaal aan ku bilownay AMISOM ayaa ka shirtay dardargelinta dhanka howlgallada Soomaaliya. Taliyayaasha militariga ee howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee magacooda loo soo gaabiyo AMISOM ayaa isku raacay in la dardargeliyo howlgallada wadajirka ah ee ay la wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Talaabadan ayaa ka dambeysay kulan 2 maalmood ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo la xiriiray xoojinta amniga doorashada iyo u diyaargarowga howlgalka AMISOM ee sanadkan 2021. Kulankaasi waxa uu muddadii uu socday taliyayaashu ay ku qiimeeyeen horumarka ilaa iyo hadda la gaaray, fikirka laga qabo howlgallada AMISOM, qorshaha kala guurka iyo hirgelinta qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.